kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta badan ee hawada ku saaxiibnay meel kasta oo daafac caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo hadduu alla idmo saacadaha soo socda ama daqiiqadaha inagu soo foodle halkan aad kaga bogan doontaan intaanan u gudagelin qodobadeenna waxaan kaa codsanaynaa daawade haddii ay tahay markii kuugu horreysay ayd aragta channelkeena in subscribe aad saarto si aad nolol jaanqaado una hesho muuqaalo xaqiiqada ku salaysan haddii aad horaan noola joogtayna waad ku mahadsan tahay muuqaalka like inoo saar sheertana inagu caawi si aan u helo saaxiib wanaagsan oo adigoo kale ah waxaan kaaga mahadcelinaynaa daawada waqtigaaga qiimaha iyo ay ku dheehan tahay tixgelinta ee markaasi aad ku bixiso channelkeena mahadsanid qodobkeena hadduu allah awoodar idmo aan diiradda ku saari doono halkan aan ku faaqidi doono waxa weeye war degdeg ah oo inaga soo gaaraya magaalada muqdisho musharaxiinta oo markaasi u tartamaya xilka Soomaaliya oo ah kuwa ugu tirada badnaa abid ee markaasi isdiiwaan geliya dalka Soomaaliya ayaa waxa mid kamid ah soo gaaray markaasi khatar ilaahay uu ka badbaadiyay oo aad weyn Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ah markaasi musharax madaxweyne oo markaasi u tartamaya xilka madaxtinimada isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga markaasi midowga musharaxiinta ayaa waxa lagu soo weeraray sida ay warar sheegayaan markaasi hub aad u culus oo laga maqlayay magaalada daafaheeda iyo markaasi agagaarka gurigiisa hubkani ayaa waxa la sheegay sida warar hoose oo kale oo xogaa dad aan la xiriirnay ay sheegayaan inuusan ahayn weerar markaasi si toos ah loogu talagalay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur laakiin uu yahay mid markaasi si qafla ah ama si lama filaan ah uga baxsatay waxay warar hoose oo kale sheegayaan in qoriga nooca loo yaqaano 7ka uu ka fakaday markaasi mid kamid ah saraakiisha ugu dhow Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ee markaa aagaasi joogay sargaalkani waxa uu dabcan la sheegay in qoriga si yani qafla ah uu uga fakaday ilaa haddana aysan jirin wax khasaare ah sida u weyn oo ka dhashay walow ay jiraan dad saraakiil ah oo ku dhaawacmay waxa la sheegay 2 nin oo markaasi kamid ah ilaalada Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur in ay ku dhaawacmeen qorigani ayaa si toos ah waxa looga maqlayay magaalada inta nawaaxiga markaasi aaga iyada oo markaasi la isku soo baxay loo maleynayay qarax lala beegsaday meela qaar lala beegsaday ee loo maleynayay laakiin qarax ma ahayn oo qoriga isaga ayuu ahaa waxaan la sheegay guri daris la ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur in uu burburay markaasina dad ay dhaawac wax ka soo gaareen isla markaana sida warar kale ay sheegayaan in gidaar ama darbi ku dhagan guri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu markaasi jugto gaadhay ama waxyaabo ay gaareen laakiin nasiib wanaag isaga waa uu ka badbaaday oo markaasi wax weyn kuma soo gaarin arrinkan isaga ah ayaa waxa jira tuhun weyn oo la xiriirinaya markaasi in ninkani ulajeedadiisa hayd in Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu beegsado oo uu yahay nin la soo adeegsaday laakiin waa un tuhun iyo shaki dheeraad ah ma jiro wax xaqiiqada ah oo warkaasi tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya waxaana jira baaritaano ilaa hadda lagu wado sargaalka isaga ah ee markaasi ay ka baxsatay xabadda isagana waxa uu ka andacoonaya xabaddu way iga baxsatay wuxuuna saarnaa ayaa la yiri gaariga nooca loo yaqaan Cabdibilaha si kadisa ayayna fargada gacanta uga dhacday markaasina xabadda ayaa sidaas uga baxsatay dhaawac 2 nin ah ayaa jira dhaawacana nin ayaa si daran oo markaasi dhaawac zaid soo gaaray walow midka kale uu xargaf ku maray oo markaasi aysan jirin dhaawac ama hadda dhimasho weyn oo halkaasi ka dhacay laakiin goobta aad iyo aad ay ciidamadu u soo buux dhaafiyeen ilaa haddana 300 oo askar lagu qiyaasay ayaa goobta ku sugan waxayna baarayaan gabi ahaanba goobta wixii ka dhacay iyaga oo markaasi sargaalkina gacanta ku haya oo waraysiyo dheeraad ah iyo waliba la yeelanaya baaritaan dheeraad ah oo markaasi wixii ku sababay arrinka asaga ah in la sii qodqodo oo la sii ogaado waxa jirta shaki iyo madmadow ku kala dhex jira dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya bilihii inoo dambeeyay waxaa jirtay isku guur aad u tiro badan iyo waliba is eedeen waxaana gabi ahaanba madow iyo shaki weyn u soo kala dhaxgalay dadka madaxda ah ee dalka u sarsareeya sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markaasi madaxweynaha u dhamaaday markaasi sida kumeel gaarka xilka u sii hayay ayaa waxa shaki weyn u soo kala dhaxgalay dhammaan inta kale ee markaasi musharaxiinta ah sida halkan aan kula wadaagnay oo ah musharaxiintii ugu badnaa ee abid iska diiwaan gelisa dalka Soomaaliya kuwaasi oo u tartama xilka madaxweynenimo
ciidamada kuwaasi oo tiradooda lagu qiyaasay ama lagu qiyaasay ma ahayd sida la cadeeyay ba ay tahay 39 musharax dhammaantood ma jirta mid ku kalsoon oo maanta dabcan sir ka dhigan kara mid kastana waxa uu leeyahay staff iyo ciidan markaasi u gooniya xaaladda ayaa qasan welina waxa socda baaritaanada arrinka isaga la xiriira waxaana meesha iskugu imaaday ciidamo badan oo markaasi ka shaqeynaya amniga iyaga oo markaasina la xiriirinayay arrinka isaga arrin si accident ama shil u dhacay inuu yahay oo markaasi aysan jirin cid markaasi weerar toos ah ku qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur dowladda dhexe ee Soomaaliya oo markaasi uu hogaaminayay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr mar waxay weerar ku qaaday guryaha markaasi ay degan yihiin midowga musharaxiinta kuwaasi oo si toos ah u muddici jiray ugana soo horjeeday maamulka iyo habdhaqanka siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo kuwaasi oo markaasi iyaguna weeraro badan kala kulmayay meelo goobaha iyagu markaasi guryaha ay ku leeyihiin ama ay degan yihiin hase yeeshee arrinkani ayaa sida iyada looga baqayay laakiin hadda maanta iyaga iyo Farmaajo ay u suman yihiin oo musharaxiin ay isla yihiin walow ay jiraan waliba in laga baqayo in askarta markaasi amniga loogu talagalay inay ilaaliso siyaasadda ku milmaan oo markaasi madaxweyne gaar ah ee uu adeegsado amniga dalka iyo waliba muxuu ahaa quwadda iyo sidoo kale maamulka doorashada sidoo kale waxa laga dhawaajiyay ama guddiga aanadaan markaasi qabashada doorashadu ay ka dhawaajiyeen in ciidamada qaranka ay ka mid noqon doonaan ilaalinta amniga doorashada goobta ay ka dhici doonto oo markaasi ay si toos ah uga qayb qaadan doonaan qaybna muhiimana ay ka noqon doonaan halkaasi ayay ku adkaysteen walow waliba musharaxiinta qaybo kamid ah oo madmadow badan kaga jiro ciidamada iyaga oo markaasi ku tilmaamay inay yihiin kuwa si toos ah ula shaqeynaya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo maadaama sanadihii inoo dambeeyay waxa kaliya uu qabtay markaasi astaanta iyo waliba xusida mudan ay tahay in ciidamada uu aad u dhisay una adeegsaday waxyaabo badan oo markaasi siyaasad ah sida ay ku eedeeyaan midowga musharaxiinta sida ay ku eedeeyaan kuwa ka soo horjeedo siyaasadiisa waxay sheegeen in uu ku milay markaasi askartii lagu talagalay dalka inay wax ka qabtaan ama waardiyeeyaan ama markaasi amni iyo xasilooni u horseedaan inuu adeegsado Farmaajo meela markaasi uu isaga dan gaar ah inuu ka fuliyo uu rabo sida in uu soo qabto ama uu dhibaateeyo kuwa musharaxiinta dalka ka oo isaga ka soo horjeeday macaaradna ku ahaa maamulkiisa iyo sida uu wax u waday ase yeeshee kow lagama dhihin oo markaasi musharaxiintu waxay weli wadnaha farta ku hayaan oo ay ka baqayaan in ciidamada qaranka ay qayb ka noqdaan doorashada ilaalinta markaasi iyo amniga howlgalka meesha ay ka dhici doonto doorashada 15ka bishan May ee hadda ku jirno ase yeeshee shakiga isaga ah waxa meesha ka saaray guddiga qabashada ama qabanqaabada doorashada iyaga oo ku adkaystay in ciidamada qaranka ay tahay lama huraan in goobta ay imaadaan isla markaana ay ka qayb noqdaan meesha ay doorashada ka dhacayso ilaalinteeda iyo waliba sidoo kale wixii markaasi qashqashaad meesha ka wado ay u xilsaaran yihiin iyaga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ma jiro ilaa hadda wax dhaawac ah oo meesha ka soo gaaray laakiin si degdeg ah ayay markaasi baraha bulshada ula boodeen iyo saxaafadda wax warisa arrinka isaga iyaga oo markaasi ku tilmaamay in qarax weyn lala beegsaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo halkaasi wax ka soo gaareen laakiin arrinka isaga ah qarax ma ahayn ee qori ayuu ahaa ninkii riday ayaana la hayaa cadeyntuna halkaasi ayayba ku dhantahay mana jirto hadda wax markaasi shaqaaqa ah oo kale oo meesha ka jira arrinkana intaasi ayuu ku qabay walow wali ay meesha ku sugan yihiin ciidamadii baarayay arrinka isaga ah iyo waliba kuwii staafka u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyaga oo baaritaan qoto dheer inay ku sameeyaan oo amar u siiyay ninka isaga ah ee ka soo riday ulajeedada ninkani ayaan wali miiska la soo saarin laakiin waxa isaga markaasi uu ku andacoonaya ama dadka la joogay ee xaqiijiyeen ee askarta la ahaa ee gaariga la saarnaa ayaa waxay sheegeen in ay tahay mid shil ah oo dhacday oo markaasi ninkani xabadda isaga ay ka fakatay oo aysan ahayn mid uu ugu talagalay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu gurigiisa la beegsado daawade intaasi ayaa kusoo gabagabeynayna qodobkii aan ku eegaynay xaaladda soo cusbanaatay ee ka jirta dalka iyo waliba gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya tan iyo kulankeena xiga waxaan idin kaga tageynaa sidaas nabadgelyo